anigu runtii waxaa laga codsaday bal inaan prediction ka sameeyo doorashadan 2017 13 November hore waxaan u sameeyay predictions doorashooyinkii 2003 2007 ee baarlamaanka iyo 2010 intaba sidii aan uga sii faaleeyay ayay u dhacday markaa ma yihi kaahin ma yihi leegumana jiro laakiinse runtii waxaan eegaa statistical ayaan ku qiyaasaa doorashooyinka saadaasha waxaa lagu sameeyaa 4 qaab mid waxa la yidhaha averaging policy oo dadka wax la weydiiyaa dabeetana averaging baa lagu sameeyaa midna waxa weeyaan regression method baa la yidhahdaa midna waxa weeyaan statistical model midna waxa la yidhaha rule of thumb oo waa iska qiyaas weeye tan malaawaalkuna u qiyaaso marka anigu waxaan sameeyey statistical modelkan qaatay waxaan soo qaatay doorashooyinkii hore u dhacay 2003gii sidii loo kale xisbiyadu 2010 sidii doorashooyinka loo kale helay iyo meelihii laga footeeyey waxaa kaloo aan soo qaatay commissionku figureski ay soo saareen gobol walba inta ka codaynaysa iyo xitaa muxuu ahaa tuulooyinka inta ka codaynaysa la soo saaray markaa waxaas baan isku celceliyey iyo rule of thumb oo malaawaala oo qabaa'ilku siday u kala degaan iyo gobollada iyo waxyaaba badan baa la isu geeyaa markaa waxaan halkan ugu bushaaraynayaa shacbiga Somaliland anagoo caawa ku dhawaaqaya natiijadii hordhac ahayd ee doorashada 2017 13 November commission way dameysaa tina waa hordhaci weeye oo u dhow runta waxa weeyaan xisbiga wadani wuxuu helayaa insha Allah 53% boqolkiiba 350 xisbiga kulmiye 42% xisbiga ucid 5% halkaasi ku dhamaanaysa 100% haddii aan tusaale yaradii ka soo qaado anigaan hoos daadegin ama gobol ugu daadegin kulmiye oo kale doorashadii 2010 axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo markaa u sharaxnaa xisbiga kulmiye wuxuu helay 49.5% 49.5% axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxyaabo badan buu aynu ku ognahay wuxuu ahaa mujaahid soo halgamay waxa weeyaan siyaasi ruuc cadaaya waxa weeyaan oday waayeela waxa weeyaan aqoon-yahan intaas dhan markaynu isu geyno waxaa kaloo taageerayay beelaha dhexe ee Somaliland ayaa wada taageerayay doorashadiisa wuxuu helay 49.5% markaynu Korneyl Muuse Bixi barbar dhigno axmed maxamed maxamuud siilaanyo xagga aqoonta xagga ruuc cadaaga siyaasadnimada xagga shacbiyadda uu ku haysto gobollada iyo beelaha waxaan filayaa inaanu 49% iyo 48% iyo waxa dhowtoona helayn marka 42% ayaan filayaa weliba inay ku badan tahay anagoo gobollo badan siiyey muxuu ahaa u badiyey waxaa la isweydiin karaa ucid 5% sideebuu ku helay waxaynu ognahay ucid doorashadii hore wuxuu helay 2003gii wuxuu helay 15% 2010kiina wuxuu helay 17% iminkana saadaashu waxay odhanaysaa haddii doorashadaba uu sii wado oo aanu ka bixin 5% inaanay ka badanayay number ahaan waxaa laga yaabaa inay noqoto 35,000 cod inuu ka helo out of 704 codadkan wuxuu ka helayaa Hargeysa badankooda oo ka helay laga yaabaa inuu ka helo 12,000 iyo salaxle oo waxoogaa ka helayo marka la isugu geeyo codadkiisu ilaa 3 noqon maayaan markaa guud ahaan saasaan ku rajaweynahay in doorashadu ay doonto bulshada Soomaaliland hasiida baaldegaan waliba xisbiga wadani taageerayaashiisu suuradka orange-ka hasi xidhaan hablo toban orange hasi tusaan insha Allah waan dabaaldegoonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi